saadaasha khabiirka BBC ee kulamada isbuucan ee Premier League. Weeraryahankii hore ee Chelsea Chris Sutton ayaa saadaaliyay kulamada Premier League ee la ciyaaraya habeenka Jimcaha iyo dhamaadka isbuucan. Brighton ayaa garoonkeeda ku martigelin doonta Chelsea fiidnimada Jimcaha, halka Tottenham ay hadda la ciyaari doonto Manchester United. Dhanka kalena Manchester City waxay sabtida garoonkeeda Etihad Stadium ku qaabili doontaa Newcastle United. Sutton oo la hadlayay BBC Sport ayaa bixiyay saadaashiisa kulamada isbuuca. Chelsea oo safri doonta garoonka Brighton ayuu ku saadaaliyay inay barbaro kusoo dhamaan doonto ciyaartaas, halka Arsenal oo booqan doonta garoonka Leicester City uu siiyay guul wuxuuna ku saadaaliyay inay Arsenal 2-0 ku badin doonto. Man City oo garoonkeeda Etihad Stadium kusoo dhaweyn doonta Newcastle ayuu siiyay guul wuxuuna ku saadaaliyay in Man City ay ku garaaci doonto kooxda Newcastle 2-1. Liverpool oo la ciyaari doonta kooxda Wolves ayuu ku saadaaliyay in Liverpool ay 3-0 kaga tilaabsan doonto kooxda Wolves. Kulanka ugu weyn ee isbuucan waa Man United oo booqan doonta garoonka Tottenham wuxuuna ku saadaaliyay in Man United ay guul 2-1 ah kaga soo laaban doonto garoonka Tottenham. Dhanka kale Liverpool ayaa haatan hogaanka u haysa kala sareynta Premier League iyadoo 7 dhibcood ka sareysa Arsenal oo ku jirta kaalinta labaad, halka Nottingham Forest iyo Chelsea ay soo koobayaan afarta sare ee Premier League kadib 24 kulan oo la ciyaaray. Haddaba daawade adiga saadaashaada kulamada Premier League ee isbuucan nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga.